bismillahi raxmaan raxiim ninka soomaaliya markuu guursanaya qaladka ugu weyne uu sameeya waxay tahay wuxuu guursadaa gabadh ay kala fikir yihiin aanay isku qadiyad ahayn wuxuu ku guursadaa lugaheeda quruxdeedii ku guursadaa isla markaasna wuxuu ogaadaa marka ay shahwadu ka dhacdo inaanay ahayn wixii uu moodayay inaanay waxaan ahayn qadiyadda ma oga inay ay ka fiican tahay inaad isguursato qof ay isku qadiyad tihiin waayo qofkaas waxa aad helaysaa waxaa ka wada hadashaan markuu arko gabadha wax allaaliya waxay ka wada sheekaysanayaan waayo iyaduna ay tiktok ku waalato isaguna maqaaxida ayuu ku cararaya marka keliya aan faraxsanay waxa marka aan ka maqanahay gurigeyga ayaa laga hayay nin marka guurso gabadh ay isku qadiyad tihiin gabadh isku fikir tihiin gabadh ku kalkaasha gabadha ka wada sheekaysataan wax isma tihiin laakiin gabadha aad quruxdeeda u guursatay waa khasaaraha ugu horeeya waa burburka ugu horeeya ee guurka